qaar ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadda Camuud ee isku galaaska iyo isku deegaanka ahaayeen Allaha u naxariistay marxuum Ibraahim oo caawa fiidkii lagu toogtay gudaha jaamacadda Camuud ayaa waxay ka hadleen sidii ay wax u dhaceen waxayna tacsi tiiraanyada u direen eheladii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay iyagoona ardaydu beeniyay wararka sheegaya in marxuumku uu sitay funaanada calanka Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga direynaa guud ahaan anagoo ah ardayda jaamacadda Camuud gaar ahaan anagoo ah ardayda reer Puntland walaalkayo Ibraahim Salaad oo maanta gacan ka xaq darin ku dishay magaalada Boorama waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kana tacsida kala qaybsanaynaa waalidkii iyo familkii uu ka baxay Ibraahim oo leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo inta ka bacdi haddii aan halkan ka sheego sida uu dhacay dilka walaalka Ibraahim wuxuu arday ka tirsan jaamacadda Camuud dhigtana faculty engineering ka Safarmoor waxa dhacday inuu galabtii uu galay imtixaankii finalka ahaa uu kaga gudbiyay Safarmoorka uguna u gudbiyay juniorka wuxuu si nabad ku soo dhameystay imtixaankiisii xaafadiisa ku yimi waxa dhacday inuu telefonkiisii ama mobilkiisii smartphone-ka ahaa uu ku soo ilaaway xaafadiisa jaamacadda ku soo ilaaway ka bacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato telefonkiisii sida daraadin halkaas ay ka dhacdinay is-afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda sidaasna walaalkayo ay tiisi ku noqotay waqtigiisina uu intaas ku dhamaaday waxa kale oo jira warar suuq ku jira in Ibraahim uu sita calan Soomaaliya ama uu xidhnaa calan Soomaaliya halkan waxaan ka cadeynaynaa inaanu Ibraahim wax calan sidan wax calan xidhnayn ee uu ahaa arday imtixaan soo galay imtixaan ku jirin uu ahaa hawlahaasna uusan ku jirin marka waxa nasiib daro noqotay xilli kanana soo kiciyay in walaalkayo oo meeyda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama tacsidiisa waxa leenahay kole kiiskada dawladda gacanta kula jirta waana la wadaa heer jaamacadeed iyo heer dawladba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si cadaalad ku dhamaan doono kiisku waxaan kaloo halkan rabaa inaan fariin uga diro arday badan iyo xansuuqa ku jirta oo leeyahay in bari subaxa leeyahay waxa dhici doona mudaharaad waxaan halkan uga sheegayaa dhammaan ardayda jaamacadda Camuud inaan balad loo yeeran baladana la iska fogeeyo kiiskuna meel fiican marayo marka Ibraahim uu cadaalad waayo ka bacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay laakiin marka hore laga warsugo dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sida ay walaalahayba ka dhawaajiyeen horta waa dareen aad u xun kaliya aan halkan waxaan uga dirayaa familka uu ka dhintay hooyo aabe samiri iimaan Allah idinka wada siiyo kaliya kama uusan dhimin waalid ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka baxay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan aad tacsi ugu dirayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo familka uu ka dhintay oo dhan samiri iimaan Allah ka siiyo kitaabkiisana gacanta midig Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi halkan uga direynaa walaalkeen Ibraahim Salaad oo maanta ku gacan ka xaq darin ku dishay magaalada Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud ehelkii iyo qaraabadii iyo jaamacaddii iyo ardaydu ka baxayn waxaan leenahay samiri iimaan Allah inaga siiyo kulli arimaha iyo arintu soo dhacda waa laga hadlay waxa jirta inuu walaalkeen maxay toolay uu jaamacadda imtixaankiisa finalka marayay ka bacdi ay oo qadartaasi ku timid uu laabtay maxay toolay inuu mobil soo qaato ardaygaasi xan ku jirto maxay toolay inuu ardaygaasi calan Soomaaliya jaamacadda dib ugu la soo laabtay ka bacdi loo dilay calanka Soomaaliya xantaasoo ay ku jirto maxay toolay magaaladana waxa leenahay waxa siinay tahay wax warar beena oo Soomaalidu ay ku shaqaysanayso waxa damir xumo ama saacadina aan maxay toolay saxaafadda aan ku hadlayna waxay tahay walaalkiinu meeyda in warar beena laga sheego walaalkiin qaabkaas ku dhintay mas'uuliyiinta jaamacaduna beejooga soo dhigeen wayna ka hadleen inuu ardaygaasi mobil soo laabtay qadartaas daraadeedna uu ardaygaasi ku dhintay waxaan inna lillahi wa inna raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut Allah jannadii firdawsa ka waraabiyo